السلام عليكم صاحبة القيمة بدن ميلول بعد الدنيا كجوكتين وأن السلام يا وعليكم السلام. عاو حاي مرتيع ودو جدا ورفع ومقرني ساي محوها هاي دلينتا مقرني ساي تيك توك آدك عانك وواه وحانا ودنا برنامج أنا مقعدرني دوقا دادك عانكا iyo sheekadii abid ugu qosolka badneed ee ku soo marta barnaamijka caawo waxaa ku martiya waan magaranaysaa soo qabtay warfaa kulli waan wareysan doonaa idinkana nala daawada fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka King Sami official subscribe like share waxba xaqiina marfa soo dhawo walaal horta ugu horeyn asxaabta salaam salaantiin kasto hal qof haduu qaaday ka dhacdo dadka dhan saamiyayna inay wada salaamay anna dirtaan ayayna wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Axmed Maxamed barasho wanaagsan waraysiga saamina waa sugeynaa okay kolley dabcan waxaan u gudageli doonaa waraysigeena barnaamijka waa horaan igu sheegay waa barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay dooqa dadka caanka ah iyo sheekadii abid ugu qosolka badneed warfaa soo dhawow walaal waxaan doonayaa su-aashaada ugu koowaad caawa inaan ku weydiiyo warfaa waa ma garanaysaa muxuu ahaay waa dee dhalinta waa wada taqaantaan kolley idiinma sheegayo waa dhalinta dee aadka aaladda tiktok u isticmaalo oo ma garanaysaa muxuu ahaay caanka ka waa u tahay ma garatay ugu yaraan intaasoo qof manaan kun oo qof kugu xiran marka kolley asxaabtaada caawi ku daawanayaan hal baaq asxaabtaada u dir horta intaanan barnaamijka gudagelin asxaabteeda dhammaan waxayna leeyahay one love warfaa haddii aan u gudagelno su-aalaheena caawo oo inkastoo aan kugu soo casuumin barnaamijkayga warfaa magacaada dee waa magac ma garanaysaa muxuu ahaay dee dadka dhan ay ku wada aqaanaan marka laga gudbo dabcan qof waliba dee waalidkiisa magacun bay ula baxeen marka magacaada saxda ah warfaa magacayga saxda maaha warfaa waa magaca awowgay iskoolka ayaa lagu wici jiray marka waxaa la dhahaa Axmed Maxamed warfaa marka saas darteed macallimiinta iyo ardayda kudigood warfaa iska dhihi jireen dadka badankood baa dartaan adduunkan wada horumaray inta badan magacyada awowga dadka loogu wacaa qof walba awowgiisa xitaa sharciyada qaar oo ku qortaa waa la isdaba mariyaa magacyada soo sharciga ku qoran yahay marka Axmed Maxamed warfaa meeshii ahayd aan warfaaga la soo hormariyay marka saas darteed magacaas leeyahay okay magaciisa la soo hormariyay marka waa saasi kugu baxday waxa lagu magacdaray magaca awowgaada okay kolley caawa aad ka bogateen aan filayaa magaciisa saxda ah su-aashina labaad haddaan u gudagalno warfaa xaggee ku dhalatay horta aniga waxaa ku dhashay Dubai dadka oo Dubai yaqaanana waa dad badan Dubai fogeed oo imaaraadkana maaha Dubai kana ma jirto adin fahmi karta Dubai okay طبعا dad badan garanaya umaleena Dubai inta badan oo garanaysa fatay soo taagi kartaa magaca kulli waa dabcan waa magac la qariyaan u arkaa may wax la qarin kara ma aniga waxa ku dhashay xariyaha qaxootiga gaar ahaan xaga dheer waa gartay meel la qarin karo kuma dhalanine waa gartay okay su-aashana haddii aan taa ka gudubno warfaa aaladda tiktok aad baa u isticmaashaa asxaab badan way kugu xiran tahay ugu horeyn ma jirtaa dee dad aad ma garanaysaa tiktok-ga aad iska barateen oo aad maanta dee ma garanaysaa aada iskugu dheertiin ها dad badan dabcan asxaab badanaa ka bartay dad badan oo sayd aan soo koobi karin ka bartay dadkaasna dad wada qalbi fiican waa badankood marka adi marka aalad furitid waad ku qasban tahay oo filowgaaga haduu soo bato dad badanaa kusoo xiriirinayo dadkiina la hadashid waa ku qasban tahay dadkii qaar kuu dhowaa arkaysaa
qof aa wax isku tihiin oo horay numberkaaga aan u heni jirin aan ku aqoonina ka baran kartaa. marka dad badan horta waa iskala xiriirnay. okay warfa haddii aan u gudagalno barnaamijkeena kale dooqa oo aan uga hadlaynay dooqa dadka caanka ah. kolley caawa waxaad ogaan doontaan warfaa dooqiisa iyo waxa uu jecel yahay. haddii aan u gudagalno dooqana waa kala qaadi doonaa oo naftarkiisa dhowr qaybood ayaan kala qaadi doonaa. dooqa dee xagga dharka ah, dooqa dee magaranaysaa muxuu xagga cunnada ah, iyo dooqa xagga dumarka ah. ugu horeyn haddii aan ku hormarno warfaa maxaad jeceshahay haddii maanta magaranaysaa muxuu aha meel lagaa marti qaado oo meel lagaa casuumo, cunno noocee ayaa jeclaan lahayd in lagugu casuumo? horta qofka ku casuumaya ku xiran tahay meeshii lagaa horta markaa marti tahay horta dooq malihid. marti ilen waa tii oo la sooro dooq ma lahan, laakiin magaranaysaa waxaad jeceshahay casuumo. ها aniga xagga bariiska si magaranaysaa hadda dadka ku maqlaayaan mise ku daawanayaan ay kugu talagalaan hadhowdii waxaa jeceshahay. dadka balan usii dhigosaya balan usii dhiguya. aniga horta ani ahaan waxaan jeclahay bariiska iyo hilibka. hilibka weliba kan ariga ah saaid kuwaas iskugu fiicannahay. ariga isku dheerti. okay ma maqlaysaan? haddii aan u gudagalno su-aasha kale warfaa weli waxaan ku jirnaa dooqi. maxaad jeclaan lahayd xagga dooqa dharka haddii la dhaho kalar noocee ayaa jeclaan lahayd maanta haddii maanta qof dee hadiyad kusoo dhiibaayo kalarkee jeclaan lahayd ma garanaysaa muxuu ahaa in dee qofkaas uu ku keeno? aniga dharka kalar unbaa ka jeceshahay. aniga kalarkayga oo favorite-ka white waaye. white okay suulka ayaa caddaan jeclaa marka lagu qasbay in caddaan la jeclaa. favorite-kaada waa white. favorite-kayga oo white. kalar kaloo kasoo xigo waa black. labadaas kalarkaa saaid u jeclahay. badanaana dharkayga inta ugu badan caddaan ay u badan yihiinba. dharka caddaanka aada u heshaa. okay waa maqlaysaan. su-aasha xigta haddii aan u gudagalno weli waxaan ku jirnaa dooqi. su-aashaan dee in badan waa sugaysaan oo dad badanna way sugayaan inay maqlaan warfaa maanta gabar noocee ah ayuu dooqan lahaa mise gabar noocee ah ayuu magaranaysaa dee dooqiisu yahay. kolley dad badan ayaa magaranaysaa jecel inay magaranaysaa jawaabta ay maqlaan. warfaa xagga dumarka haddii aan u gudubno maanta haddii lagu dhaho dee gabar xulo maxaad ku xulan leed? horta xulashada way badan tahay. markay imaata gabar xulo qof nolosha kula wadaago kuu qalmo aad jecel inaad wadaagtiin awlaad badan kala dheshiin aad rabtid. marka waxyaalo badan oo ku khasbantay inaad ka fikirtid. waayo kow waa inay gabarta gabar diin leh tahay ee dhowrsan tahay. diin haddii la dhahana waxyaalo badana soo hoosgalayo oo hadeertaan inaa sii banbandhiga aanan habboonayn. marka waxaa jirto gabar inay xoogo joog leedahay, jirkeeda saaid u buurnayn, aanan caate ahayn, qof umadiisa ku dhex jiro, qof oo xoogo yaana lay qabsanin yaa dad qof aada iska caadiya macquula qabsanaysa ma lahan. dooqaada ka hadlaysaa caawa waa u madax banaanta inaad ka hadasho dooqaada. dooqaadana cidna kulama laha. horta inkastoo qof walba qof dooqo haddii la dhaho uusan qof samaysan karin. ani ahaan qofkaa jeclaan lahaa oo kuu sheegaya haddaa ku dhaho astaamaha in magaalada laga waaya laga yaabo. ma jirto qof dhammaystiran dunida. qof dhammaystiran horta dunida ma jirto. laakiin ma garanaysaa duqyadaa jeceshahay inaan qof ka heshid markaa ka dambaa jeclaanay sidaa jirto. qof oo aanan kuga afcelinayn oo qeylo badnayn, qof aanan dadka oo saaid hilibka u qaada aanan ahayn, qof oo caatan lagu qiyaasi karin oo qof oo saaid aanan hilib lahayn, qof yara quruxsan umadiisa ku dhex jiro, soomaalinimada ku weyn tahay. aniga qof ajnabi ma rabo, qof soomaaliya oo dhiiggii la wadaago intaas. okay haddii laga soo tago dee ma garanaysaa inta aad sheegtay qofka naftirkiisa xagga xoogaa jooga waa ka hadashay.
ma garanaysaa muxuu ahaay haddii aan u gudubno qofka midabkiisa waxba kama ada dhihin midab horta weli waxba kamaan sheegin laakiinse hadeertaan wax midab laga hadlaba ma jirto qof madooba ma laha magaaladan hadeertaan aad joogna haddaa dhex socotid qof madow ah ma arkeysi ummadii oo dhan aa wada caddeed wax midab ka sheekeenaa sheekada miyaa ma garanaysaa muxuu ahaay garadska aad samaysid xitaa qof madooba raba haddaa dhahda inaa heshid laga yaaba laakiinse qof cadaa raba haddaa dhahda ummad oo sanadkoodii hore haddii la fiiriyaa ka naxaysid hadeertaan wada cadcada magaalada jooga marka qof muhiimadda waxay tahay qof ummadiisa ku dhex jira inuu yahay okay haddii aan intaa kasoo tagno kolley waad maqashaan waana ma garanaysaa muxuu ahay dee dhegtiina caawo way ku dhacday dee warfaa maanta dee gabar noocee ah wuxuu ku dooqon lahaa iyo astaamaha ay leedahay warfaa haddii aan dooqa kasoo tagno wax xiriir aa leeda ma jiraa xiriir hore uu jiray waxyaalo badan oo private iska aha jiro laakiinse hadeertaan wixii private ku maanta aan ka wada hadleyno aniga xiriir am single oo ku faraxsanta noloshaan marka waa aragta soo aragta meelaa ku jiro okay haddii aan kasoo tagno intaas warfaa waxaa nala wadaagtaa caawo maadaama uu barnaamijka u yahay barnaamijka dooqa dadka caanka ah iyo sheekadii abid ugu qosolka badneed waxaan doonayaa inaa nala wadaagto sheekadii abid ugu qosolka badneed aada maqasho ama adiga shaksi ahaantaadaha kugu dhacdo mise ma garanaysaa muxuu ahay dee wax aada meel ka maqasho ha ahaato wallaahi horta sheekooyin badan way jiraan laakiinse hal sheeka kuu sheegaya weli igu qosolo badneed ani ahaan dad kalena inay ku qoslin doontaa jeclahay waxaa dhacday beri nin heer baadiye ayaa jiray oo dadkan geel raacatada ayaa jiri jiray marka geel badaan uu lahaa geelu waddo soo mariyaa marka wadada highway waaye gawaari badana soo marta marka gawaarida geela maqlaa waa kala didayaan soo maha maalin walbeed gaarun baa geela ka didiya ninkii markaasu wuxuu dhahay horta bahalkan baas oo geela iga didiyo annoo inaa ka naxiyaa sifuu naxo markaasuu intuu gaarigii intuu geeda ugu gambaday laamiga geeskiisa ku yaalo wuxuu dhahay waa intuu dhuu soo boodo qofkii gaari 9 ku socda maa istaagayo qof door ka soo bax meeshuu ku talaalay marka qisadaas ay ugu ilaa hadda si waa isweydiinaya yaa arkayo waxaa ya sheegan karo inaagu ku dhintay yaari geelii u naxayayna ka tag isagana naftii waa okay ugu dambeyn barnaamijkeena caawo halkaas ayuu ku egyahay waana wareysigii aan garanaysaa muxuu ahaay ka qaadnay warfaa ugu dambeyn asxaabta maxaa leedahay asxaabta waxaa leeyahay social media waa lagu wada jiraa dadkao dhan adi dad badan hadda inaa isku keentid aad rabtid waa inaad juhda gelisid sifaad u heshid wax kii kaleeto fiican aa usoo saartid bulshadaada aad tustid marka waa ku faraxsana walaalka inaa hadeertaan anii soo aaday oo aad i wareysatay makaankeyga intaa igu imaatid aada iyo aad aa ugu faraxsanahay marka waxaa ku leeyahay hore u soco asxaabta waxaa leeyahay waxayna leeyahay like-ga subscribe-ka share-ka waa xaggiina qof walbeeto wuxuu qof ku yahay oo uu meel isku soo saari karaa waa shacabkiisa iyo wuxuu soo tuso idinkana wax fiicanaa nalii keenayaa insha allah like-ga subscribe-ka share-ka bartaas hadda ka dambeeya anigu way wareystay laakiin saasna markiisa waa wareysan doonaa jiraalkaygu kasoo muuqan doonaa insha allah waa dhamaatay mardhow warfaa official aa ka arki doontiin waa dhamaatay ma garanaysaa muxuu ahaay ninka waa warfaa waa wada taqaantaan dabcan dee caawo dee barnaamijka qofkii ugu horreeyay dee aan ku daafuru ahaa barnaamijkana wuu soconayaa oo dad badan ayaan ma garanaysaa halkaan soo fadhiisin doonaa fanaaniin iyo dhalinta tiktok-ga caanka ka ah
dhammaan qof dee dadka la leeyahay dee dadka ma garanaysaa dee social media caanka ka ah ayaan soo fadhiisin doonaa ama ha ahaadaan fanaan ama ha ahaadaan dhan kaleba caana ka ahaadaan xagga facebooka mise aalada tiktoka barnaamijka wuu socon doonaa dad badan oo ma garanaysaa muxuu ahaay dee aad jeclaan lahaydeen in ma garanaysaa waraysi laga qaado ayaan soo fadhiisin doonaa insha allah waxaan leenahay barnaamijka sheekareya like siya subscribe saar saasii nabadgelyo adna santi